deegaanku waa tiirka ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan yihiin dhammaan nooluhu waana halka ay ka helaan dheefta iyo dhuuniga nolol maalmeedkooda. haddaba waxaa jira dhibaatooyin badan oo dad samee ah kuwaasi oo aadamuhu u geystaan deegaanka. warbixintan waxaynu ku dahrogaynaa waxyeelooyinka balaastikada iyo bacda iyo kaalinta ay kaga jiraan nabaad guurka deegaanka. dhibaatada ay keeni karaan labada shay ayaanu wax ka weydiinay Axmed Bashiir Axmed oo ah dhiin ku xigeenka kuliyadda deegaanka iyo beeraha ee jaamacadda Burco oo aqoon sare u leh cilmiga beeraha iyo deegaanka. magacaygu waa Axmed Bashiir Axmed waxaan ka mid ahay barayaasha tacliinta sare waxaan ahay hormuud ku xigeenka kuliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda Burco. walxaha ka samaysan caaga iyo baacuhu run ahaantii waa walxo ka kooban material warshadii ay samaysay waxaanay ka kooban yihiin chemicalskaasu waxay la falgalaan carrada markay la falgalaan carrada waxa ku dhaca waxa la yiraahdo soil contamination oo carradu way wasakhowdaa. carradu markay wasakhowdo waxa ku xiga ayadana biyuhu inay wasakhoobaan oo water pollution dhaco. labadaas markay wasakhoobaan waxay u sii gudbiyaan dadkii iyo xoolihii iyo deegaankii. imahaasu markaa waa samowga ama khatarta ay deegaanka u geystaan oo ah in chemicalskaasu ay milmaan saddexda eriyo isla markaana ay saameeyaan. si isticmaalka walxahan aynu sii isticmaalano run ahaantii waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara. haddii carradu wasakhowdo biyuhu wasakhoobaan hawadu wasakhowdo waxa mustaqbalka ka dhalan karo climate change in cimilada adduunku isbedesho. ma jiraan wax istiraatiijiyada oo dawladda iyo hay'adahu ay ka leeyihiin. run ahaantii horta xagga dawladda waxaan filayaa dawladda Siilaanyo inay soo saartay policy lagu xakameynayo bacaha iyo balastigiska isla markaana deegaanka lagaga yareynayo. ilaa imankana xukuumaddu kolley xakameynta way wadaa inta ogaalkayga ah. xagga hay'adaha ayaguna aad bay arrinka ugu wacyigeliyeen bulshada. xalka ay keeni karayaan shirkadaha ganacsigu ee la xiriira bacaha iyo caagadaha dunida inta badan waxay xal ka dhigaan halka caagadaha laga isticmaalayo in quraarado maartay lagu soo warshadeeyo sharaabkii iyo biyihii. sidoo kale halka bacaha wax lagaga qaadanayo ayagana in lagu bedelo kiishash ka samaysan fiber oo markaa dadku ay ku adeeganayaan oo aan deegaankan waxba yeelayn. sidoo kale waxa xalku noqon karayaa inay shirkaduhu keenaan warshado yaryar oo kooban oo bacaha iyo balastigiska ama caagadaha recycling loogu samaynayo oo dib looga dhigayo material loo isticmaali karo sida dhismayaasha iyo wixii la halmaala. inkastoo aan xal waara loo helin haddana waxaa jira dadaallo lagu bixiyay sidii wacyigelin lagu sameyn lahaa dhibaatada bacda iyo caaga taasi oo ay fuliyeen qaybo ka mid ah hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Faadumo waa gudoomiyaha hay'adda UNITA oo ka jirta Somaliland waatan iyadoo ka waramaysa dhibaatada walxahan. magacaygu waa Faadumo Axmed waxaan ka socdaa hay'adda UNITA. halkaanu taaganahay maanta iyo meelahan soo marnayba qashinka yaala caagad iyo bac. qashinka waxyeelada mooyaan inoogu filan waxtarka inaynu waxtar u bedelo ayaa muhiima. inaynu warshado dib u gelino inaynu bacaha bedelo oo ku bedelo wax baaba'aya. naftayda iyo naftiinaba waxaan ku boorinayaa in laga hawlgalo sidii qashinka loo yareyn lahaa. qaar ka mid ah macallimiinta iyo barayaasha dugsiyada oo ka faa'iideystay baraarujintan ayaa iyaguna dhankooda ka faalooday amuurtan. aragtida ka midaysnayn ama inaan iskaga niman maalin walba maanta ka dambaysa dhibaatada iyo aafada weyn ugu sii kordhaysa. mustaqbalkeena dambe waxa ku baaba'ayana waa ubadkeena iyo dhalinyarada maanta aan garanaynba sida wax looga qabto deegaanka ama wuxuu yahay deegaanka.